Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xasadku waa qayb ka mid ah xanuunada ugu waaweyn ee qofka bini'aadamka laabtiisa ku dhaca. Ilaahay baana subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid yahay xanuunada ugu xunxun ee qofka bini'aadamka soo mara, taasi oo qofkan wax xasdaya uu ka xumaanayo qof kale wax Ilaahay siiyey oo deeq ah, maal ha ahaato, qurux ha ahaato, caqli iyo maskax ha ahaato, dadaal uu qofku sameeyey baa xitaa mararka qaar xasadku galaa. Qofkan wax xasdayaana inta badan aaminaad la'aan iyo kalsooni darro xagga Ilaahay ka haysata ayaa ku sababta inuu qof kale wixiisa u muuqdo, waayo qof iimaan leh kuma mashquulo wax qof kale haysto. Haddaba haddii aad tahay kan la xasday ama kan la yeelay, waxaan kula wadaagaynaa qodobo dhowr ah oo aad kaga gaashaaman karto ama aanad u jabaynin qofkan ku dabagelaya ku xasdaya, si aad howlahaaga hore ugu wadato. Marka koowaad qofkani wuu ku dabagelayaa, uu ku fiirsanayaa, wuxuu raadinayaa guulaha iyo waxyaabaha aad haysato iyo sida aad ku gaadhay, wuxuuna doonayaa inuu isaguna sidaas oo kale gaadho, balse marka uu isku dayo ee uu samayn kari waayo ayuu xasadku imanayaa oo uu ka xumaanayaa inuu isagu xaqiijin kari waayo wixii aad xaqiijisay. Isla markaasi waxaad noqonaysaa cadowgiisa koowaad, adigoo xaqiiq ahaan adigu aan cadowga u ahayn ama aan ogeynba waxa laabtiisa ku jira, ayuu haddana isaga bartilmaameed uu kaa dhiganayaa, wuxuuna kuu arkayaa inaad tahay cadowgiisa. Wuxuu isku dayayaa inuu si uun u raadiyo, isla markaana uu hoos kuugu soo dhigo oo adiga meesha aad u socoto iyo waxa aad diiradda saarayso uu kaa mashquuliyo. Wuxuu isku dayayaa inuu raadiyo dad aad si uun isu haysaan ama si uun iyaguna kaaga soo horjeeda, si halkaa xulafaysi uu uga dhaco oo adigii lagu waxyeeleeyo ama niyad ahaan hoos lagugu dhigo, si aanad halkaad rabto u gaadhin. Wuxuu isku dayayaa inuu mararka qaar ku dareensiiyo inaad tahay qof aan waxba qaban karin, isagoo wax ka sheegaya waxyaaba aad samaysay ama aad soo bandhigtay oo kale. Wuxuu kuu samaynayaa eedo iyo ceebo aanad lahayn, si aad ugu mashquusho inaad iska dhex raadiso ceebaha lagugu eedeeyey, taasina ay meesha uga saarto fakaskii iyo wixii aad rabtay ee ku calaamadsanaa inaad gaadho. Wuxuu nolosha u arkaa qofkaas inay tahay tartan. Wuxuu isweydiinayaa kumaa caan ah, kumaa taajir ah, kumaa saaxiibo badan leh, kumaa shaqo wanaagsan haysta. Waana taa meesha uu xasadka ugu horeeya ka bilaabmo. Marka uu qofku aanu Ilaahay ku kalsoonayn, inta badan waxyaabahaas wuxuu ga saaraa. Wuxuu ka baqayaa inaad ka dheerayso, isagana loo arko inuu yahay faashil. Markastoo aad ka dheeraysana nacabkii uu kuu qabay wuu sii kordhayaa. Waxaa laga yaabaa inuu aaminsan yahay inaanad u qalmin heerka aad joogto, balse ma oga dhibka iyo hawsha aad u soo martay iyo dadaalka aad halkaa ku soo gaadhay. Dadka qaarkood way ku xasdayaan, waayo waxay doonayaan inaad ka soo dhacdo halka aad joogto, isla markaana aad weydo waxa aad haysato si aad iyaga ula mid noqoto. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay dabeecado ay dadka badankiisu necab yihiin, kuwaasoo ay ka mid yihiin aamusnaan, yar socodnimo, dantigaradnimo, iyo inaad tahay qof qorshe leh oo wax u degan yihiin, isla markaana jecel inuu ku socdo, ama mararka waqtiga sheekada iyo fadhi ku dirarka la hayo danihiisa ka raacda. Taasina xasadka iyo dadka kugu mashquulsani ma jecla. Mar walba waxay doonayaan waxyaabaha ay waqtigooda ku lumiyaan inaad adiguna kula lumiso. Waxaana laga yaabaa markay taa kaa waayaan inay adiga ceebo kuu sameeyaan, iyagoo kugu eedeynaya inaad tahay qof danaysta ah, qof xidhxidhan, qof aan dadka dhex gelin. Mararka qaarna lagaba yaabo in adiga ku dhaahdaan, adiga xasadku ugu tilmaamaan oo ay ku dhaahdaan waa qof aan waxba quudhin, ogowey waqtigaagii baad ku bakhayshay, wax kale maanad samayn. Haddaba marka ay ku xasdayaan, ogow inaad samaynayso wixii saxda ahaa. Ku soco wadadaada, hana u ogolaan inay ku joojiyaan. Ogowna markasta inay jiraan dad ku jecel, kuguna taageersan horumarkaaga, isla markaana ku garab siinaya.